boqol sano hadduu ku jiro talaajada walaalkayna ilaa aan helo ciddii dishay halkaasuu igu jiraya waanaan aarsanayaa ilaa al'aan maydkii walaalkaya maanu arag misaxa baa ku dhacay ma 10 baa ma 20 baa ma 30 baa lagu faaruqiyey ninka yaa arkay malaha nalooma ogolo cidna ogoli ma jirto inaa lay hor keeno ninkii ma taqaanaayee de qacantaa geystay walaalkay dashil baabuurku uu dhimanin nin lagu yiri wax aliya wixii ka dilay ma garanayno oo waa lagu waayay laakiin dawlad baa ku qaadatay oo magti ku siinaysa qaado kuwan ku qancana maaha kuwan ku qaatana maaha waana boorama bari toolay soo bixi caawada ay soo bixi wixii halka ka dhaca dawladda wax qarinaysay adaa ka mas'uula anigoo ah maxamed cali axmed daahir ducaale waxaan halkan maanta saxaafadda ugu yeedhay inaan arrinkii shalay toole walaalkay marxuumka dhintay oo ah Yoonis Axmed Daahir oo ah walaalkaygii iga weynaa ilaahay horta naxariistii janna ka waraabiyo qabrigana ilaahay ha u nuuro samiriya iimaana ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo tolkii ilaahay ka siiyo iyo ummadda islaamka waxaan halka walaalahayo ka cadeynayaa inaan arrinka walaalkay weli haatan waxaan laahay oon ka sugayaa dawladda inay ii magac bixiyaan ciddii aan walaalkay kala xisaabtami lahaayay ciddaabaa dishay ee ku aasan lahaa ayaan ka rabaa jamhuuriyadda Soomaaliland halka waxaan ka codsaday in madaxweynaha qaranku iyo madaxweynaha ku-xigeenkuba inay arrinka ma taqaanaayay ay iyo heer gobolba iyo heer degmaba inay arrinka ma taqaanaayay iga qanciyaan sidii aan ku aasan lahaa walaalkay oo talaajada igu jira dhakhtarka igu jira sidii aan u aasan lahaa inaa lay hor keeno ninkii ma taqaanaayay de qacantaa geystay walaalkay dashil baabuurku uu dhimanin qof bilaadanaa dileedii qofka bilaadankina reer buu ka soo jeedaa waxaan de la rabaa inaa la yidhaahdo ciddaabaa dishay oo laygu magac bixiyo taabaan ku aasanayaa walaalkay taa haddaan waayo de waxaa ka dambaynaya waa la ogaanayaa boqol sano hadduu ku jiro talaajada walaalkayna ilaa aan helo ciddii dishay halkaasuu igu jiraya waanaan aarsanayaa ilaahay hadduu nagu simana tu loogu kala hadhayana arrinkaas maaha waxaa kaloo halkan ka cadaynayaa shalay xafiiska badhasaabka arrinkii ka dhacay ee naloogu yeedhay madaxdeedii noogu yeedhay qaranku iyo cuqaasheedii anigu arrinkaas shalay toole saxaafadda loogu yeedhay iskumaan ogeyn saxaafad keliya waxaan isku ogeyn waa ninkaasi wuxuu ka dhashay abkay dudul cismaan buu iyo ninkaasi ka dhintay dawladayna ani halkaa waxaa ii jooga adeerkay iyo suldaankii iyaa jooga waxaan ka codsanaynaa suldaankii iyo adeerkayba inayna hor kacaan reer dudubna noo geeyaan oo tolkana dhex geeyaan ayaan ka codsannay arrinkaa annagoo waa yahay isku raacnay oo nidhi weliba dhiigga haddii aad doonayso inaan kaa qaadno dhiigga haddaad rabtiin dawladda inaan dhiigga kaa qaadno horta waxaa dhiigga ka horreeya inaan mataqaanaayay aad tolka dudub cismaan ayaa dhiigga lehe inaad tolkii de maanta waxaa jooga suldaankii reer dudub iyo waxaa jooga janankii noogu sarreeyey reer dudub labadiinaasina hor kaca dudub cismaanna noo geeya iyagaa dhiigga leh iyaan afkaygaa ka nidhi waa yahay baa la yidhi annagoo dhaqaaqnay oo dareernay oo albaanka ka soo baxnay ayaana la yidhi guddoomiyihii baa nila hadlaya kaalaya soo noqda waa noqonnay kolkaa fadhiisannayna saxaafaddii oo ordaysa ayaaba dafna soo tiroo soo gashay saxaafadina nooguma jirin jalwadka saxaafaddu jalwadka noogumay jirin wax dhiigahoon halkaa annagu ku kala saxeexanayna oo qoraal aan qornayna ma jirin ogolaasha ma jirin waa dhiigga dudub cismaan baa leh dudub cismaan noo geeya oo hor kaca buu arrinkaygu ahaa taas saxaafadda la dhex keenayna
de anagu wax alla waxa raali kaga ahaniyo waxaan ogeyn ma jirin halkiina anagu waan ku dhex diiday anagu saxaafadda ma ogelin baan waxa wax ka jiraan ma jirto taasina sidaasay hayde wax allaaliyo wax anagu aan soo qaadnay dhiig on didu cismaan nooge aan ahayn walaalahayo waan weynay warkolka waxaan ka codsanayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa ninka walaalkaya meydka talaajada igu jira sida ugu dhaqso badan inaan u helo ninkii dhibta geystay gacanta geystay ayaan rabaa shalay toole arrinkii ka dhacay Boorama jeelka ay jeesho hore ka dhacay inamadii sida xaq darrada ah rasaasta loola dhacay khaasatan ee ku geeriyooday walaalkay ahna in adeerkayga labaad Yunis Ahmed Daahir Ducaale ilaa al'aana aanan haynin wax alliya wax dilay ilaa in dilaalkuba wuxuu ku marmaa neef loo keenay oo yiraahdo waar neefkani qiimaha soo galaya iyo kuma galayo oo lagu wada marmaa hal saac iyo bad ka bacdina saxaafadda la soo dhex dhigay markiiba waa la qaatay dhiigiyo waa la ogolaaday waxaan cimriga dhicin dunidana ka dhicin ayaa shalay halka ka dhacay waxna matalan ma ahayn waxaas waxaan ognahayna ma ahayn waxa weey ninka uu dhintaa wadkii Ilaahay baa dila wuu dhintaayo shil baabuur buu ku dhintaa wuu dhintaayo qof baa dila wala ogaadaa qofkii abiidan baana dayal kala qaadan jiray oo inakood ogtahay baa dayada qaadan laakiin nin lagu yiri wax alliya wixii ka dilay ma garanayno oo waa lagu waayay laakiin dawlad baa ku qaadatay oo magtii ku siinaysa qaado aqliga bili aadanka ee saliimka ah ama ka diinta quraanku ay noo sheegayso kaas ma kuwan ku qancana maaha kuwan ku qaatana maaha dawladda haddii ay dawlad cadaali jirto oo meesha wax kale ku laabnayn waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan leh hal la sheego waxa sharcigana hal la waafajiyo qofkii dilay hal la keeno ilaa al'aan meydkii walaalkay man waarag misaxa baa ku dhacay ma 10 baa ma 20 baa ma 30 baa lagu faaruqiyay ninka yaarkay ma laha nalooma ogolo cidna ogoli ma jirto ciidamadii militariga kuwii booliska kuwii kale maxay ahaydeen diboga intiba waa la wada keenay ciidan dadka lagu soo muquriyana ma shaqeynayso soconna mayso waxa saweey Yunis gacantayada aysan maayo kana hakran mayno sidana la wada ahaan maayo waxa weey uu dhintay imika Allah u naxariiso jannada Allah siiyo innakana samiriyay baan Allah inaga wada siiyo waxa meesha taala wixii aan ku dhintay ee walaalo ku dhintay haddii ayna dawladdu keenin wixii halka ka dhacayada ka masuula wax kale oo hadal kale oo yaalay ma jirto konton sanana ha noqotee waana Boorama bariina soo bixi bari toolay soo bixi caawada ay soo bixi wixii halka ka dhaca dawladda wax qarinaysay adaa ka masuula cidna hay'adsan